السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسودو على جانكين عصب خالد بالعميرة إجانك واسكو ميت حتى مركا أوريزا دو ياي سبسكرايب صار لايك ده شير ده داودا أوريزا ونقطت مثل بعض داوين ريد أني سو ولا ريد وأركيسين جاسكا قفك ديكر قبو سكرتا adiga meel walba u fiican yahay kuleeto waa arkaysin asxaabtayda mar walba ila socda daawo wax walba oo daawo ahaado shactara ahaado wax walba ila socda janankan hadda cusub Khalid Balcamira ila soco qofka ugu horeeyay saa u naqatine san ku sheegay samee aad iyo aad u maasantiin daawasho waxa like saarto ayadana aan ka baqayn hadii ilaahay idmo daawadan dabiiciga ah maxay tahay marka waa daawo wadankaasi Norway geed ka baxo Norwegian spruce tree la yiraahdo ayaa laga sameeyay muxuu yahay faa'iidooyinkiisa ee wax gadaal bay nooga imaanayaan kabaniga sameeyay waxa la yiraahdaa Oplands waa kabani wadankaasi Canada ka jira oo mataqaan waxyaabo fara badan runtii iibiya muddo 15 sano ka badan ayay ganacsiga ku soo jireen maxay tahay marka daawadan dabiiciga ahi waa daawo mataqaanaa kiimikay waxaas ku jirinin oo daawo natural ah oo mataqaanaa waxyaabo far badan dhalada yarta waxyaabo badan bay koobaysaa way noo soo socdaan waxyaabaha ay faa'iidooyinka ay leedahay sida ujeedan geedkan wuxuu ka baxaa buuraleyda wadankaasi waqooyiga Norway ayuu ka baxaa waa geed runtii aad iyo aad u adkaysi badan barafka aragteen oo -50 ayuu ku noolaadaa sidoo kale samarkana mataqaana kulaalaha markuu jirana sidoo kale tawo mataqaana awoodiisu aad bay u sareysaa uu qaabilaa waxyaabo aad ku yaabiya saynisyahanka waxa kamid ahaa sababta keentay baaritaan in lagu ogaado geedkan waxay ahayd laantiisaas markuu barafku ka bato intay jabto dhulka ku dhacdo ma qalasho ayadoo xididda lahayn biyana cabaynin sanado fara badan ayay noolaataa oo green ta ilaahay baa wuxuu siiyay marka geedka meeshuu ka qalali lahaa oxygen iyo bacteria geli lahayd in ayna bacteriada gali karin oo mataqaanaa dheecaan isdaweeyo ilaahay inuu siiyay awood uu dheecaankiisa isku daweyn karo marka waa geed runtii aad iyo aad dheecaankiisu cajiib u yahay bini'aadankana faa'iidooyin badan ayuu leeyahay sidoo kaleeto waxyaabaha dheecaankiisa la socda waxaa kamid ah inuu anti-inflammation waad garanaysaa inflammationka dadka tufta qaba luga xanuunka mataqaana dikaanka lafaha dadka uga jira bararka waxyaabo fara badan ba mataqaana inflammation jirka 70% waxyaabaha badan jirida dadka u keena inflammationka kamid ah antioxidationka oxygenka aan qaadano waxa la socda bacteria pollution xanuuno fara badan baa la socda sidoo kale markaynu qaadano oxygenka qaadano waxyaabo waxay ku abuuran jirka free radicals la yiraahdo oo jirooyin ayay ku abuuraan oo haddaan jirku iska difaacay marka xanuun keena ayadana way difaacdaa jirka way ka ilaalinaysaa iyo bacteriadan kale faraha iyo gacmaha lagu haysto aynu marka aynu isbarbar dhigno vitaminada maanta aan isticmaalno iyo daawadan dabiiciga ah fountain of life waxaan ognahay vitaminada aan maanta isticmaalno vitamin D ga goonaad u qaadataa C ga goonaad u qaadataa B12 ga goonaad u qaadataa mid walba gooni ayaad u qaadataa marka liqdo jirkaaga 30 ilaa 40 daqiiqo qaadataa inuu jirku fahmo inay daawo soo gashay muddo dheer bay qaadataa inuu jirkaagu la qabsado fountain of life dheecaankeeda carabka hoostiisa ayaa lagu shubtaa 20 second ayaa la hayaa waa la liqaa marka 20 second kaliya qaadata inuu jirkoo dhan markaas inuu galo marka aad iyo aad bay isticmaalkan uga sahlan tahay faa'iidooyinkan way noo soo saaraan say runtii uga badan tahay saynisyahanku waxay ogaadeen markay geedkan baareen dheecaankiisa 10 dhibcood oo geedkana markaad afka ku shubato wuxuu u dhigmaa marka loo fiiriyo fruitka aynu hadda isticmaalno adoo cunay 1800 oo tufaax oo hal mar cunay ayuu u dhigmaa fitamiinka aad ka heleed 1800 oo tufaaxa lignankii ku jiray ayaa 10 dhibcood ku jira sidoo kale ama waxa u dhigantaa 70 orange ayaa 10 dhibcood u dhigantaa ama konton koobo shaaxa ama taqaan 77 koobo boorash adoo cunay ma cuni kartid waxaas oo dhan marka faa'iidooyinka ay leedahay waa runtii aad bay u sareeyaan 10 dhibcood mataqaanaa waxaana la socda sidoo kale inflammationkii iyo waxyaabaha la dagaalamayso dheecaanka ilaahay dabiici ahaan ugu daray wadanka UK xafiis baan ku leenahay mataqaanaa xaafadaas waqooyiga London xaafada la yiraahdo Tottenham stationka Bruce Grove agtiisa ayuu xafiis ku yaalaa saacadaas ayuu furan yahay anytime waad imaan kartaan waad gadan kartaan daawadii macluumaadkii waad heli kartaan
sidoo kaleeto haddaad doonaysa inaad online ka gadato oo aadan xafiiskayga imaan karin oo dunida meelo badan ka joogto google haddaad tagto ciwaankaas haddaad kalik siiso fol.1/sahan websiteka ayuu ku geenaya daawada kabacdin order now ayaad kalik siinaysaa emailkaaga geli adresskaaga geli bankigaaga gasho waa ku imaanaysaa daawada meel kasta aad joogto ama facebook ayaga blue ocean team haddaad tagto waad nagala soo xiriir waa soo dalban kartaa ama whatsapp waad nagala soo xiriiri kartaa sidoo kaleeto waa natural waxba yarada chemicals iyo waxaas kuma jiraan lacagtaadana 90 days money bagna waa leeyahay guarantee gelatin iyo waxaasna malaha haddaad soomaaliya ama africa joogto waxaanu gadnaa $90 oo uu ku jiro mataqaanaa uu ku jiro mataqaanaa boostadii iyo waxaasna ay ku jiraan taaj iyo dahabshiil iyo almustaqbal intaba waad isticmaali kartaan meel kasta magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya haddaad joogtaan whatsappka iyo fiberka iyo emailgana lambarkaas ayaad kusoo dirsan karaysaa sidoo kaleeto haddaad doonaysa inaad ka faa'iidaysato ood mataqaanaa aad wakiil noqoto meel kastoo aad joogto waad ila soo xiriiri kartaa mataqaanaa dadka wakiilada ah runtii faa'iidooyin badan bay helaan oo aan dadka caadiga heli karin oo mataqaanaa ayagu daawooyinka gadanaya facebookana waa kaas haddaad online rabto inaad ka gadatana halkaas ayuu ku qorayaan sidoo kaleeto maxay tahay faa'iidooyinka ay leedahay daawadani marka faa'iidooyinka ay leedahay waxaa ka mid ah inay la dagaalanto mataqaanaa inflammationka luga bararka tufta looyaha xanuunka oo kale waa la mariyaa dusha laga mariyaa haddii murqa ku xanuunayaan waa la mariyaa haddii dhabarku xanuunayo waa la mariyaa dhowr nin oo saaxiibadayo hadda bangladesh dhabarku xataa ka fariisan kari waayey daawada markuu dhowr dhibcood buu dhabarka mariyay habeenkii afkale 20 dhibcood buu ka qaatay maalintii labaadba aad buu xanuunkii runtii uga degay haddana dhabarkiisa aad iyo aad buu fiican yahay runtii awalna beerku wuxuu ka qabay wax la yiraahdo liver fat buu qabay oo ibuprofinka dhabarka xanuun ka bi'iyay muu qaadan karin sidoo kale kansarka difaac bay u leedahay rag iyo dumarba oo mataqaanaa antioxidantigan awood waxay u leedahay inay ka hortagto waxyaabaha kansarka keena caafimaadka ka mid ah wadnaha oo kaleeto timaha waxaa lagu darsadaa saliidda dumarku darsadaan waa la marsadaa timo badan bay kuusoo saaraysaa caloosha runtii iyo dhinaca cuntada iyo dheefshiidka aad bay u kordhisaa waxyaabaha keena inuu qofku markaas weight loss inuu mataqaanaa inuu weightku ka dhaco sidoo kaleeto ilowshiyaha dimensha dadka qaba autismka aad bay u caawisaa sonkorta cholesterolka ma garanaysaa dhiigkarka waxaasoo dhan wuu baalansa jirka ayaa difaac ayay u leedahay dumarka hormoonkooda waxyaaba fara badan bay runtii aad uga caawisaa dhinaca mataqaanaa awoodda rag oo kaleeto aad bay u kordhisaa oo mataqaanaa raggu matalan waxyaabahay u baahan yihin waxaa ka mid ah inay awood yeeshaan dhinaca raaxada waxay u baahan yihiin hurdo fiicanna inay seexdaan fitaminadooda iyo immuunkooda inuu high yahay marka waxyaabaha aadka cajiib ku tahay daawadan waxaa ka mid ah dadka hurdo la'aanta yahay so hurdo fiican oo habeenkii seexdaan ayay siisaa subaxii waxaad soo kacaysaa adoo fresh ah ayaad soo kacaysaa inta badan dadka haddaad 20 dhibcood qaadato sidoo kale immuunkaaga iyo enerjigaagina kor bay u qaadaysaa sidaas ayaa rag badan ay runtii awood ugu yeeshaan dhiigkarka hurdo la'aanta waan ka soo hadlay cholesterolka baabasiirka aad iyo aad bay u daaweysaa baabasiirka laba ninoo hadda mid baan wala ogaa mid kalan hadda ogahay laba turki ah oo rag ah daawadaanay isticmaaleen ayagoo qaliin u diyaar ah waddankan london in laga qalo baabasiirka oo markay musqusha galaan iyo iska soo dhacayay maalin way soo waceen waxay yidhahdeen baabasiirkii gebi ahaanba wuu naga baaba'ay maba jiraba oo xididadiisooda ilaahay u abuuray ayaa ku noqday marka baabasiirka aad buu ugu fiican yahay dhowr gabdhood oo kala aqaana iyaguna magaalada la dhanqaatay oo runtii ilaahay ka kaxeeyey gebigiisiiba baabasiirka marka aad buu runtii u caawiyaa sidoo kaleeto marka tufta iyo bararka lugaha oo kaleeto gabadhaas anaa musawirka ka qaaday waddankan la dhanbay ku nooshahay kowdii bisha 8aad bay ahayd intaan daawada aysan isticmaalin 6 beri kabacdi markay dusha ka marmarisay bararka lugteeda runtii aad iyo aad buu dhacay lowgana way ka socon wada tuf bay qabtay markay marisana aad bay runtii xanuunkii faraha